dhalinyarada Soomaalida dhamaan inay maartay wadanka la joogo aan la tahriibin qaarkood wuxuu leeyahay wadanka shaqo ma laha marka bil Ramadaan lagu jira wadanka loo duceeyo yani tahriibka dhibkiisa waxa weeye yani tahriibka gabar ayaa waxay tiri wiil ay ku heshiyeen inay iskuulsadaan markaas Liibiya joogan tahriibkii isaga ayaa nasiib u helay wuu talaabay talyaaniga uu gaaray gabadhii ayaa soo daahday guusu macnaha jaceelkii meeshii uu joogi kari waayay doon kala soo qaatay Liibiya ku soo laabtay gabadhii asaga is dib dhaafeen ayadu way gudubtay isagana Liibiya hadda jooga way iska warhayeen tiri waa gudbay kadib doon kala soo qaatay tii la qalibantay wuu ku dhintay meeshuu ku dhintay marka gabadha sidaas ay isku seegeen ruuxii ay rabeen inay isku sadaan marka taariibkaas waxa keenayo dhibaatada faqriga wadanka Ramadaan lagu jira wadanka loo duceeyo Ilaahay wanaag hana siiyo yani dhalinyarada waxay leeyihiin wadanka warshada ma laha shidaal laga shaqeeyo ma laha runtii Soomaalida maskax fiican Ilaahay waa siiyay carabta anaga ka maskax fiican laakiin maxay taajir u noqdeen shidaalkay qoteen dii lacag kasto lacag dii la siiyo leeyahay joojiya qodina ma yeelayaan marka fasaasoo kala u baahanaa anaga oo lacag kasto la siiyo oo yiraahdo may shidaalku waan qodaya hadda waxay taagan tahay shidaalkii Kenya ku dhagan Ilaahay anu maqan Ramadaan lagu jira hala duceysto insha Allah